مرتبة هوري تري وحي مقدامهم قلا أنا ما أنت وحن كدري وحي معنى لكتابته وحبا له قبا قلبي قادكم مودان تهي محمدو مخشر يا مقارب ميلاي سومالي جوجتو مقصود بيكايهن مددي يا ريت مسؤوليتي أتقبتين سيدادو ما رئيسين لما هادي عيدنكو إذن ملقى شعبكو إذن كموني مرخاتين واتهين ما تدعدبن ما يدان كرفاتسن إن المدك تقابنو ما انت يسو تاغنو ومدايسني هوروسي وات محمدو مدحوينا نوقو محمدو إنو مولهن أقبلو إذن أمين تميسا شعب يهو أنا مركا waxaan jeclahay inaan soo dhaweeyo inaad soo dhaweysaan inaan isla soo dhaweyno shakhsi shariif ah dalku u baahan yahay badbaadiyey asaga iyo dawladdiisii dibna u jecel inuu u badbaadiyo geesi halyeyn ah Soomaali ay u mudaaharaaday 20 sano oo ka dambeysay dawladdii marxuum Major General Mohamed Siyaad Barre shakhsi kaliya oo loo mudaaharaaday oo loo ooyey oo loo aayay ومرحومينها مستقبلك مروديسا سيد عبد المعلم بارين عميدك راكتشتا السودوية إلى السودوية الزعيم رئيس الوزراء محمد عبد الله محمد فرماجو وقت الواعرين لما هذا الضعفات يا صديق وقت وقبقبه وهل يا أو لقياسي كريم الحكومة العلاية لكن غير من السلطة سيدا قيمة له الصومال له القيمة له النوسو دويسين زي من السلطة تيالي تيو وحاسوا لغاية لها تيو وحن هذين وطيرا سوي iyadoo ay dhaxan jirto iyadoo aad hawlo kala leeyihiin shaqooyin badan aad ka soo kala tagteen inaad caawa halka naga soo qayb gashaan xafladda weyn oo aan ku caleema saarayno xisbigeena cusub ee tayo idinkaas kale tayo waxaan mahad u celinayaa guddiga soo qaban qaabisay sharafta badan sida wanaagsan ay u soo qaban qaabiyeen oo quruxda badan ilaahay ajar iyo xasanaad allah ka siiyo waxaan idin doornay runtii waxaad tihiin dad mathali kara soomaalida la yaqaanay dad mathali kara meelo badan baan fiirinay in aan ku qabanno xafladdan qiimaha badan sida
magaalooyin badan baa jira laakiin ma sheegi karo dad fiican baa degan iyaga naftigooda laakiin waxaan ka door bidnay inaan ku laanji karayno magaaladan meel kasta Soomaali ay joogtana waxaan hubaa inay aad iyo aad idinku faraxsan yihiin ee idinku dayan doonaan haddii ay yiraahdo waxaan u mahadcelinayaa khaasatan gabdhaha Soomaaliyeed caawa waxay muujiyeen ilmihii iyo wixii lagu yaqaanay Soomaaliya waxaase ka helay islaantii hooyada ahayd meesha istaagneed oo xoogtay mikrofoonka waa sanadkii dumarka ay muujin lahaayeen cududooda annagu haddaan rag nahayna aan empower garayn lahayn marka inay xoogsadaan maaha waa inaan siina markaan inaan garano weeye marka la fiiriyo xaqiiqda gabadha walaashay ee wasiiradda ahayd waxay ka soo hadashay ilaa waqtigii asxaabta laakiin aniga waxaan ka bilaabaya nin walba aqoontiisu ka hadlaayo xaawataanko SYShii ma aysan dhaqaaqeen dumar la-aan 20 sano burburka ku dhacay Soomaaliya dumarkii baa laga tegay marka haddaana soo xasuusan 21 sano oo kalena sugaysa marka waxaa loo baahan yahay in la iskaashado oo la wada shaqeeyo markaasaa la gaari karaa runtii guul iyo horumar laakiin markii qaar society ka mid ah aan dib u dhigno haddee rag baan nahay waas dhaqan annaga isdilayna marka wax lagu ka dhex jiro u baahanna soo maaha aad iyo aad yaan ugu faraxsanahay runtii kulli dadka halkan yimid mar kale iyo mar saddexaad mar labaad iyo saddexaad waa u mahadcelinaya waxaan u mahadcelinaya oo kale xaaska ila socota Zeyno Cabdi Macallin waxaa la yidhaahdaa dumarka yaa inta badan yidhahda laakiin anaha caaw u dhihi doona nin kastoo wanaagsan qof dumarka oo socto wanaagsan marka caawa waxaad nasiib u yeelatay runtii in ay taariikhda gasho tayo ma gaari karta SYL hal habeen meelay soo jiifatay SYL tayo ma gaari karto laakiin inaan ku dayanno SYL oo aan xasuusano waxay soo qabteen ummadda Soomaaliyeed oo anigu aan ka mid ahay inta ka mid yihiin aad soo manafacsateen inaan xasuusnaano mar walbaba dhiigay daadiyeen iyo halkankay soo galeen mar walba inaan xasuusnaano si waxaan qabanayno ay barako yeelato xaqiiqdii kuwa hadda nool inaan xasuusano magaalada waxaa la jooga halyeeri weyn ra'iisul wasaarihi hore Cabdirasaaq Xaaji Xuseen haloo duceeyey oo wadani ah oo soo halgamay mar walba waa inaad u ducaysaan la soo booqdo markaasaad waddanka wax loo qaban karaa runtii laakiin markii dadkii u soo dhintay dalka la iloobo hadda wax soo socda dan lagama laha marka waxa soo socdana waa carruurteennii weyn marka carruurteena ma iloobi karno waxaan rabaa intaanan gudaha ku gelin principalka waxaan rabnaa inaan hortaan principalska iyo mabaadi'da ururkaan hor u gelin inaan hal hadal idhaahdo oo baryaha idaacadaha ka soo socday oo dad maybe si xun u turjumeen inaan wax ka idhaahdo sababtaan ku tegay Soomaaliya oo prime minister ku noqday dad badan baa isweydiinaya laakiin waxaan leeyahay haddii la yiri maxamed farmaajo dhaqaale ma wadin waa run dhaqaale ma wadan ilaah baa markhaati ka ah inaan waxba kala soo tegin waxaa la yidhi ciidan ma wadan waa run ciidan ma wadan laakiin ciidankii joogay yaa tegeeyey oo xaqa wax u lahaayeen iyo waxay dhimaayeen oo ay ka mid tahay noloshoodii inaan kala dihi karayno koodii dhaawacma inaan daaweyno
كين أنت عروتي سير المشاهر هو ضلو واقعين عينك أو وحي الهايين المنايين ياسين استراتيجية لكن ولا تجي ماشي استراتيجية ولا تجي استراتيجية لا تجي أو مدحوينها ويصلحوا شيء أنتي انترفيو ولا قاعدين وهرني برلمان كانوا كهر آخرين أنا بدي أرصدي استراتيجية ده سوى حقوري ولا شقين وبدأ الصوماليين لما توكي سنة وصوت عافي يوحي كهرية العين ولا شقين وبدأت الحوضة مدحدي مدحوينيه يبرع من السنة سوجري والأكتهين خلافات بدن يا هريي تاسو جدي إنما هيراتين وحور مرة لكارو وحن بلان قاضي أوريري ولا شقين بوحدة إن لقى هيرو مدحوينه هي برايم مينستر كا إن لقى هيرو برايم مينستر في وزير رئيسة أو شقين ستين وأنا شقين الله ونقولي استراتيجية لما تروح هي وحقبت maxaa yeelay runtii 10 sano ay jirtay xukuumadii kumeelgaarka ahayd waxa la waayay wax qabad maxaa yeelay hadduu mar khilaaf jiro waxa lama qaban karo haddii madaxweynaha ay barnaamij haystaan waxa lama qaban karo marka la hormariyo wada shaqeyn waxa la qaban karaa wixii aan qabanay marka idinka markaati ka sii gabadha wasiiradii hore u hadashay Sahra ay tiri waxaan ka bilaabay amniga waataan idin waxaan hawlaha amniga xamar ku soo afjaraynaa muddo 100 maalmood soo ma ahayn 100 maalmood al-shabaab waday fartu ku hay 100 kaas maalmood waa tirinay waxay lahaayeen wiil baa dhamaaday maxaa soo socda wiil kala ku xigsaday ilaa markii ugu dambeysay عقبنا وزارة كاشانيكا وشد عارها محمد أفريقيا فيلج قيب كمية بكارها جدكي صدوكا إلا سيناي بونيرونم إلا عقبني أو أدوغاني إني بربورين أو أنوليبا داو حقي سني نيكوري وغسري ولورنجري فيصل فصول عبد الله محمد oo ahaa nin wakiil u ahaa alqaacida Soomaaliya iyo Afrika wakiil u ahaa taasna waxa lagu gaaray ciidanka qalabka sida oo aan tayeynay oo waxay u baahnaayeen aan siinay raashinkii ay waayeen aan dib ugu soo celinay mushahar joogta aan u sameynay koodi dhaawacma aan daaweynay kii dhintana aan caruurtiisa iyo caa'iladiisa ka warqabnay kuwii toddobaadii ku dhaawacmay naftigooda maxaa yeelay haddii kii waagaasi waddanka u dhibaatooday oo u dhaawacmay ama u curyaamay aan waxba la siinin kan hadda ma dagaalgelin kartid wuxuu leeyahay kan hadda jooga markaas kii horaaba aan la daryeelin sidee aniga aan u dhiman karaa markaasi waxay kaliftay in tayadii iyo geesinimadii iyo dadnimadii ciidanka qalabka siday ee Soomaaliyeed oo lagu yaqaan geesinimada inay la soo noqdaan wixii lagu yaqaan taasana waxay keentay in shabaab la baacsado oo ilaa xitaa gobolada Gedo iyo Jubbooyinka aan ka saarno gobolada dhexe aysan inch wax la mid aysan soo haweysan taasna waxaa kalifay in ciidankii qiimahoodii iyo sharafkoodii aan soo celiyay waxaa ku xigay dowlad wanaag oo runtii markii khilaaf u jiro iyo wada shaqeyn la'aan ay jirtay faham darro waxba lama qaban karo markaas waxay dhaawacday in barnaamijyadii dowladda ay ku shaqeyn lahayd ay curyaamaan waxaan weydiistay wasiiradan gadaashada taagan markhaati ka ah wasaaradda walba inaan weydiistay 100 maalmood inay ii soo gudbiyaan qorshahooda shaqo gabadha walaashee oo Maryam Qaasim oo caawa meesha sida fiican qiimaha uga hadashay waxay ii keentay waxa kamid ahaa
inay soo tiri waxaan aruurinayaa 400 caruur oo agoona oo maxaan ku raahdaa ka yimid maxaan ku raahdaa guryo aanan dab ka shidnayn ay tiri qorshahaygu ku jiraan ee lacagtaas ilmahaas 400 aan ku xanaaneyn doono halkaan soo dhig ilaahay wuxuu ka lifay bil gudaheedii 400 caruur oo agoon u badan oo daryeel u baahan inaan siinaynay quraac iyo qado iyo waxbarasho ilaahay ajar iyo xasanaad allah ka siiyo waxaa igu maqaalaha hadda in meeshii intaan soo tegin ka hor in meeshii dhisnay waxay ku jireen meeshii allaahida iskoolkii la oran jiray sheekh suufi